السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي waxaan wanaagsan daawadayaal idlaantiin baa ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada daawan doontaana waxa kamid ah muxuu yahay kacdoonka Muqdisho ka bilowday oo uu markaasi uga dhigan yahay dagaalka al-shabaab samaxay tahay sirta markaasi ku hoosduugan ee Xasan Sheekh Maxamuud dawladdiisa ay ka damacsan tahay abaabulka dadka shacabka taliyihii booliska Puntland oo shaaciyay xog cusub oo la xiriirta qorshaha Saciid Dani xilli markaasi qof iyo cod ee deegaanada Puntland ka socota siyaasiyiin badan oo reer Puntland ay isku haystaan Mareykanka oo 10 milyan dul dhigay sargaal ka tirsan al-shabaab iyo sidoo kale xogta sida uu markaasi u baadi goobayo ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo deegaano kala wareegay al-shabaab dawladda Kenya oo xadka markaasi Soomaaliya ay la wadaagto soo dhoobtay ciidamadii ugu badnaa abid iyadoo ka cabsi qabtay in al-shabaabka markaasi Soomaaliya ay soo burisay u guuraan ama ay ka gudbaan xadka ay la wadaagto markaasi Soomaaliya xiriirlaaliyaha Mareykanka oo magacaabay qareen baaris ku sameynaya Joe Biden iyadoo markaasi la sheegay in baaritaankan uu ka dhigan yahay midkii hore ee sidan oo kale qalqalka u galiyay madaxweynihii ka horeeyay Donald Trump qodobada ayaa daawan doontaan ee aan ku bilaabay ee daawadayaal magaalada Muqdisho caasimada dalka waxaa ka bilowday kacdoon karana al-shabaab kaasi oo dadweynaha markaasi ay ku taageerayaan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka si looga adkaado kooxda kacdoonkan oo qorshihiisa uu horkacayo maamulka gobolka Banaadir ayaa markaasi ka qabsoomay garoonka kubadda cagta Engineer Yariso ee magaalada Muqdisho qamiistii la soo dhaafay waxaana markaasi halku dhigiisa uu ahaa daahfurka kacdoonka Muqdisho iyo dabargoynta qawaariista oo markaasi looga dhigay halku dhig kulankaasi iyo banaanbaxa weyn ee markaasi lagu dhawaaqay oo la sheegay in uu ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaale oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in kacdoonka ka bilowday Muqdisho uu ka dhigan yahay in dagaalka uu marayo meel gabagaba ah oo al-shabaab la jabiyay sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in banaanbaxa qamiistii uu ahaa markaasi kii ugu weynaa ee dalka ka dhaca una sheegay in dadweynaha ku nool gobolka Banaadir ay sii wadi doonaan banaanbaxa sida wasiirka xigeenka markaasi carafka ku dhuftay wasiirka xigeenka ayaa kamid ah markaasi wasiirada ama mas'uuliyiinta sida aadka markaasi ugu dhiiran in ay markaasi afka ka sheegaan dagaalka ka dhanka al-shabaab ayna markaasi sameeyaan in ay markaasi ficil loo bedelo hadalka dhanka kale taliyihii hore ciidanka booliska Puntland Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare oo wareysi siiyay warbaahinta gudaha ayaa shaaciyay qorshaha uu Saciid Dani ku qasbayo saraakiisha ciidanka Cali Yare ayaa sheegay in madaxweyne Dani uu isku dayay in uu ku cadaadiyo saraakiisha ammaanka meelmarinta doonistiisa gaarka ah xilli ay socdaan doorashooyinka maamulkaasi dad markaasi ka badan 600 oo qof oo ciidanka madaxtooyada galbinayaan ayaa la keenay xilli ay guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinku noo sheegeen in bixinta ay xirantay oo dadka safka ku jira markaasi ma aha mid markaasi cid kale gadaal looga soo dari karin ayuu yiri oo waa mid markaasi si gaar ah gacmo kale ay ugu jiraan guddiga markaasi kumeel gaarka ah ee markaasi diiwaangelinta doorashooyinka ka socda deegaanada Puntland waxa uu sheegay in Saciid Dani uu ururkiisa ka looga guuleystay doorashadii saddexda degmo xilligaasi ay markaasi waxa uu bixiyo amaro uu doonayay in saraakiisha amniga iyo guddiga doorashooyinka ay bedelaan natiijada saxda ee doorashadaasi arrintan ayuu markaasi shaaciyay taliyihii hore ee booliska Puntland waxa uuna markaasi sheegay in sare u qaadi karto in markaasi uu doonayo qof iyo codka uu Dani ka wado deegaanadaasi mid uu isagu doonayo in uu ku helo ahmiyad iyo sidoo kale inuu kursiga ku sii joogo sidoo hadalku dhiga una ku helo codad iyo tiro badan dhanka kale kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada xoreynta deegaanka oo horkacayay
culimada degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud ayaa kula wareegay deegaano dhaca gobolada Mudug iyo Galgaduud ee dowlad goboleedka Puntland. Taliye ku-xigeenka ciidamada xoreynta deegaanka Macalin Cabdikariin oo howlgalka hogaaminaya ayaa sheegay in ay si nabadgelyo ah Al-shabaab ugala wareegeen deegaanada Seego, Hinlaabe, Baraag Ciisaan Iraahde, Howldayaal ee gobolka Mudug iyo Qalanqal iyo sidoo kale deegaano badan oo markaasi dhammaantood ka tirsan Galgaduud. waxaana markaasi deegaanadan ay sheegeen ciidamada in ay si nabdoon oo xasiloon ay kula wareegeen. Ilaalyaha guud ee dalka Mareykanka Merrick Garland ayaa inoo soo socda, balse dalka Mareykanka ayaa waxaa markaasi dowladiisa dalkaasi Mareykanka waxay ku dhawaaqday abaalmarin lacageed oo gaaraysa $10 milyan oo doolarka Mareykanka cidii keenta xog ku saabsan Maxamuud Cabdi Aadan iyo dadkii kale ee mas'uulka ka ahaa weerarka Hotel Daisy 2 ee 2019 kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof oo ku jiray muwaadin Amerikaan. Agaasimaha waaxda dambi baarista DCI ee Kenya Amin Maxamed Ibrahim iyo safiirka Mareykanka ee dalka Kenya Whitman oo shir jaraa'ideed markaasi si wada jir ah ugu qabtay xarunta dambi baarista Kenya ayaa ku dhiirigeliyay dadweynaha in ay la soo xiriiraan hay'adaha ammaanka haddii ay hayaan ama ay helaan xog iyo muuqaal markaasi ku saabsan eedeysane Maxamuud Cabdi Aadan oo Mareykanka uu sheegay inuu si weyn u baadigoobayo. Ugu dambeyntii xilaalyaha guud ee dalka Mareykanka Merrick Garland ayaa markaasi waxa uu magacaabay sargaal baaris ku sameeya sida ay waraaqo sir ah oo dowladda leedahay lagu keydiyay xafiiskii hore ee madaxweyne Joe Biden uu ku lahaa Washington iyo waliba xafiiska kale ee ku yaala gobolka Delaware ee markaasi kasoo jeedo. Xilaalyaha guud oo markaasi sargaalka ugu sareeya ay qaabilsan fulinta sharciyada Mareykanka ayaa u magacaabay in markaasi mas'uul uu sheegay inuu ku kalsoon yahay inuu horay u sii wado dacwadaha iyo arrinta la xiriirta baaritaanka kiis markaasi uu sheegay in lagu doonayo madaxweynaha hadda talada dalka Mareykanka ee Joe Biden. wararkii ugu dambeeyay daawadayaal oo inaga intaan ku kulmayna warkiisa nabadgelyo.